Ladies and gentlemen, waa idin salaamay. Videogan waxaan idin tusi doonaa sida WordPress website loo sameeyo from start to finish ama bilow ilaa dhamaad. Hadda videogan ayaa ku socdaa muuqaalkan waxa ku socdaa qof walba oo markaas aqoon u lahayn sida website loo sameeyo balse daneenay inuu barto. Haddaba videogan waxaan u kala dhignaa dhowr step walba markaas qodob gaar ah u ka hadli doonaa. Waxyaabahan ku tusi doona waxa kamid ah markaas si aad website cusub u dhisto. Waxaan arki doonaa sida loo helo domain iyo web hosting. Domainki iyo web hosting waa labada shay u baahan tahay marka aad website dhisayso. Marka waxaan arkaynaa labada shay si loo iibsado oo loo helo. Kadib markii aad website-kaada hawada soo geliso waxaan ku tusi doonaa sida loo soo dego template ama markaas design kala duwan oo markaas midka aad rabto website-kaada loogu dhiso. kadib waxaan arki doonaa marka sida loogu bilaabo dhistaanka website-kaada sida dhammaan pages-ka website-kaada loo dhiso sida home page-ka iyo contact us page-ka oo ah markaas meesha ay dadka la soo xiriiri lahaayeen. sidoo kale waxaan ku tusi doonaa sida website-kaada loogu sameeyo logo markaasi. marka xigtana waxaan arki doonaa markaas qaabka website-kaada markaas xawaarihiisa kor loogu qaado. qaybtii ugu wanaagsan ayaa waxay tahay markaas website-ka aan markaas dhisi doono dadka haysta markaas ama isticmaala mobile caadi bay u soo gali karaan oo u soo access gareyn karaan. oo waxaan arki doonaa markaas qaabka website-kaada mobile iyo tablet ba loogu optimize gareeyo. haddaba markaan bilaawno dhistaanka website-keena ugu dambeyn haddii aad wax su'aalaha qabtana qaybta comment-iga waad igu reebi kartaa ama waad nala soo xiriiri kartaa soo aan bilaawno videoga. step koowaad markaas waxaa arki doonaa sida loo helo markaas domain iyo hosting. marka hore san domain iyo hosting u helna waa maxay domain iyo hosting? Domain iyo hosting waa magaca website-kaada sida hebel.com sida bbc.com oo kale. Hosting waa meesha website-kaada uu ku host garaysan yahay. saan u helna waxaad furaysaa tab cusub kadibna waxaad tagaysaa webdisa.com/hostigator. website-kani waa linkiga markaas aad ku dhufanayso waa kana ama aad tagayso si aad markaas discount ama qiimo dhimis wanaagsan aad u hesho. sidaan ayaad u qoraysaa Google haddii kale linkiga markaas waxaan dhigaa qaybta description-ka ee videogan ku dhufo. markaas sidaas u qorto waxaa dhahdaa marka enter ayaa leedahay. marka soo jeedo waxaan keenayaa meeshan oo ah markaas Hostigator. Hostigator waa shirkadda aan ka iibsan doono hosting and markaas domain. Hostigator waa shirkadaha badan markaas aan adeegsado aan ka iibsado. waxaad helaysaa markaas waxaad ka helaysaa sida meelahan ku qoran ay sheegayaan markaas support 24/7 ah oo mar walba cilada ku qabsato support ay ka siinayaan. sidoo kale inta badan domain hosting-kooda aad qaali uma aha markaas. marka si aan u bilaawno waxaad ku dhuftaa meeshan ay ku qoran tahay get started ku dhufo. get started marka aad ku dhufatid waa kana marka saddexdan balan ayuu ku siinayaa hajin balan pay balan iyo business balan. saddexdan balan midka arabta ayaa ka dooranaysaa. balankan koobaad ka soo qaad waxaad ku dhis kartaa ay ku leeyihiin hal website kan waxaa ku dhis kartaa ilaa 5 website kan waa unlimited website lagu dhis karo. marka haddii aad tahay hal qof mid walbana saa u jeeda qiimihiisa intaan waa 2.7 3.5 iyo 5.12 mar walba marka haddii kan marka aad rabto inaad istahal website macnaha oo markaas maxaa la waxyaabo badan aadan u baahnayn midkan u horeeya la iska iibsada oo loo yaqaan hajin balan. ana marka waxaan ku tusi doonaa code ayaan ku sheegi doonaa coupon code qiimo dhimis ku siinay. marka kanaan aniga hadda iska dooranaya waxaan leeyahay buy now ayaan leeyahay. buy now marka dhahdo meeshaan uu keenaa marka xigto. meeshaan dhowr step ku qoran. stepkan koobaad saa u jeedo user domain uu ku leeyahay magaca u dooro website-kaada. kaba soo qaad magacaan dooranaa marka magacaan doorto marka magaca website-ka san u qoro meeshaan aad furaysaa. meeshaan marka aad furto marka waxa u jeedaa waxa ku haystaa wax extension lahay .com.online.site.website marka mid gaar rabto dooro. aniga hadda .com ayaan iska dooranayaa maadaama ay tahay mid common ahan. .com marka aad ku doorato saa u jeedo wuxuu ku leeyahay website-kaadi lama heli karo .com oo hore ayaa loo qaatay. meeshaan marka waxaan sameynayaa kale ayaan ku daraa for example kaba soo qaad magac baa bedelaya. marka meeshaan bedelo intan waxaan ka dooranaa .com saano kale ayaa la rabaa marka magacaada hadda waxa u jeedaa website.com in la heli karo oo markii haddii la heli karo meeshaan aad cagaarati ku soo fuulaysaa. saa u jeedana domain waxay ku siinayaan marka horeyso free 1 year ah oo hal sano ay ku siinayaan. marka waxaad adiga iibsanayso marka horeyso waa hosting-ka domain-ka free ayay kugu siinayaan. sidaas niyada ku hay marka kuwan kale .club.site waxaad rabto adeegsan kartaa. marka aniga hadda midaan .com ay dooran marka magac domain-keeda aan secure ku sameeyo la heli karo aan ogaado hoosan u soo dagaa. meeshaani lacag $14 ayaa kula socoto oo wuxuu ku leeyahay domain privacy ku darso oo macnaha dadka qaariyaysan email iska ka soo dirin waxyaabahaas. marka haddii aadan common ahayn qof caan ah waxyaabahan uma baahnid oo TikTok ka qaadi kartaa.
hadhow haddaa rabto gadaal ugu darsan kartaa qaybta cPanel-ka no problem. marka tigta aan ka qaaday inta qaybta labaad stepka labaad wuxuu leeyahay juice waxaa doorataa hosting plan kan soo doorano waa hajin haddii aa xasuusato faraha ka qaad meesha laysku haysto waa meesha marka meeshani waa bilaha muddada markaasi aad lacagta bixinayso bilaha marka haddaan furo waa hal bil ku bixi karaa 2 bil 12 bil 36 bil inta raba ku bixi karaa soo hadda qiimaha ii dooran haddii aan hoos soo dego hal mar markii hoos u soo degto waxaa samaysaa midaani camal oo stepkan shanaad waxyaabahan lacala hadii tig ku saarantaa tigta qaad sida kan oo kale hadda uma baahnin tigtan ka qaadana waxyaabahan gadaala SSL logan uma baahnid side logan soo hadda fiir marka $105 waa 36 bilood marka hadda maxaan sameynaa meeshani marka hadda bilaha waa bedeleynaa meeshani waxaan ka dhigaynaa bisha kaba soo qaad hal bilan ka dhigaynaa okay hal bil imisa ay naga siinayaan haddaan hoos soo dego hal shay bil waxaa ujeedaa $25 inay tahay marka waxaan ku siinaa coupon code ayaad meeshan gelinaysaa coupon code-kan waxaa lahaa wab dhis ayaa lahaa wab dhis markaad meeshan geli kadib validate ku dhufo qiimahan waxaan rabaa markaas inuu kaa dhaco ayaa la rabaa 25 yes saa ujeedo hadda wuxuu noqday 14 waxaad discount aad u heshay markaas lacag aad u badan ayaad markaas discount u heshay 11 miya wax saas ayaad markaas maxaa la discount aad u heshay marka kaasa hadda qiimaha 14 taas noqday marka midaan ku talanaa sanadka u horeeyay weliga bil ha iibsan sanadka u horeeyay qiimo dhimis badan oo ku siinayaan waxa la iibsadaa inta badan sanad ayaa la iibsadaa 12 bilood sababtoo ah 12 bilood wax sidaas u badan ma haddii aan 12 bil ka doorano meesha furno qiimo wuxuu noqonaa markaas konton ayuu noqonaysaa haddii u badato bishii waxay noqonaysaa markaas kaba soo qaad $4 miya wax sidaas camal kan badan ay leedahay marka sanadka hore hub ina markaas intaas aad iibsato sanad sababtoo ah hal bil hadii aad iibsato wax macna markaas ku keenayso marka intaas aad sameeyso so stepka saddexaad wuxuu ku leeyahay waxaad abuurataa account soo ujeedo meeshan waxaa gelisaa gmail-kaada marka gmail-kaada ku celi waa muhiim gmail-ku hadhow waxaad ku gal lahayd login ku dhihilayd inta waxaa siisaa markaas kaba soo qaad password ayaad siinaysaa okay password aad siinaysaa meeshan 4 number sameeyso ku leeyahay security pin waxa laga yaabaa hadhow marmar qaar inay ku weydiiyaan ku dhan security pin kaada sheeg marka caawinaad weydiinaysid hubi sidoo kale meeshan marka waxa waaye stepka afraad macluumaadka billing information galin macluumaadka lacag bixinta magacaada inta ku qor magaca u dambeeya phone number-kaada iyo wadada aad joogto marka intaas ku qorto company-gaas waa optional oo iska dhaaf kartaa address-kan labaad waa optional iska tag country wadanka Soomaaliya ka door inta Soomaaliya ay dooran city magaalada Muqdisho state-ka gobolka Banaadir zip code-kan Soomaaliya maadaama zip code aysan lahayn iska qor markii xigta meeshan wuxuu ku leeyahay lacagta laba ku bixi kartaa waxa ku bixi kartaa PayPal oo ku bixi kartaa credit card soo credit card-ka waxa sameeysaa marka number-kaada iska gali okay number-kaada iska gali marka number-kaada gelisana meeshan waxa gelisaa CVV code-kaada iyo waxa saddexdaas number inta expiration card-kaada inta dhacayo faahfaahinta master card-kaada ku qoran gali marka inta sameeyso step-kan shanaad waxaan hadii lacalasan ay tig kugu saaran yihiin tigta ka qaad okay hubi soo marka inta sameeyso hoos soo deg qiimaha saa ujeedada 47 ayuu noqday marka xogtii aan buuxinay soo saayid u yaraaday marka waxa sameeysaa marka u dambeeyay meeshan ay ku qoranta terms-kan waan kugu raacay tigsaar marka hadda waxa sidaas ku dheeyin kadib waxa dhahdaa markaas jack out ayaad ku dhufanaysaa soo markii jack out na taay dhahdo sidan ay kugu soo baxaa soo waxa u jeedaa markaasi inay lacagtii markaasi ay ka aqbalayaan soo lacagta soo jeedo wanaga account-kan markaasi way kala baxeen soo marka inta waxa leenahay macluumaadkeena safe ayaan leenahay email-ka sababtoo ah login ayaan ku leenahay ama sign in okay soo marka intaas aad sameeyay sidan ayuu kugu soo baxaa shaashadan ayuu keenay soo meeshan wuxuu ku leeyahay wax yar nooga sheeg maxaa lahayd hadafkaadi waxyaabaha leedahay soo marka waxyaabahan skip ayaan iska leenahay oo qasab wax sida qasab maaha soo maxaa leenahay hoos ayaan u soo degaynaa kadibna waxaan ku dhufanaynaa skip ayaan leenahay oo naga gudbi soo meeshan waxa leen close ayaan leenahay oo iska xirana soo marka inta ayuu ku keenay close marka aad qaybtaada dashboard soo marka waxaan leenahay kaliya install WordPress so install WordPress marka aad sidan ay kugu soo baxaa kaliya waxa ku dhuftaa meesha ku qoran tahay install now kadib marka inta ay u keenaa soo inta waa muhiim markaas macluumaad aad gelinayso soo meeshan waxaad gelisaa markaasi macluumaadka markaasi WordPress-da kaba soo qaad admin-ka soo aan kala saarno meesha ugu horeysa wuxuu ku leeyahay kaliya waxa gelisaa site name magaca website-kaada soo waxaan hadhow waa bedeli kartaa kuwan soo kaliya magaca website-kaada sidoo kale site-kaada muxuu ku saabsan yahay soo maadaama hadda uu yahay website waxaan la sida website loo sameeyo waaye okay marka xigta marka meesha ugu muhiimsan waa tan soo meesha admin username iyo password u sameeyso oo hadhow mar walba aad WordPress login ku dhahdo qaybta dashboard-ka aad ku aragto soo meesha hore magaca geli kadibna password u sameeyso
marka xigta marka wuxuu ku leeyahay meeshan waxaa gelisaa emailka markaasi emailkaada geli. soo emailkaada hadhow gadaal waad gelin kartaa kaasi haddana waad gelin kartaa, laakiin labada ugu horeyso username iyo passwordka waa muhiim. soo isku day inaad xasuusnaato. soo marka intaas aad sameyso kaliya waxaad sameysaa hoos soo deg. soo kadibna waxaa dhahdaa markaasi install. soo saa u jeeda marka hadda waxaa noo soo degaya markaasi WordPress waa uu noo soo degayaa. soo waqti yar ayay qaadanaysaa, iska sug. okay, soo saa u jeeda marka hadda waxaa u jeeda inuu WordPress noo soo dega. markaasaan saadkeena u daawano. soo meeshaan ayaad markaas waa dul tagaynaa, kadibna tab cusub ayaan furaynaa. soo hadda saa u jeeda wuxuu leeyahay marka your connection is not private. oo maxaa laga wadaa marka, macnaheedu maxay tahay? marka hore website-kaada ayaa waxay tahay inuu sameeyo wax loo yaqaan markaas propagation wax kale ma hostgator ayaa markaas waxay qaadaysaa dhammaan domain-kaada, kadibna waxay gaarsiinaysaa dhammaan serverada dunida. hey qofkan wuxuu iibsaday domain name. soo inaa markaas domain name iibsatay una jira ayay tusaysaa. soo laga yaabaa marka inay qaadato 23 daqiiqo. soo mar walba soo laabo oo refresh garay. soo hadda muddo kadib marka haddii aan kusoo laabano site-keena, soo saa u jeeda marka hadda site-keena markaas waxaa ujeeda inuu live yahay oo mar walba qof walba oo markaas internet ku jiro uu soo access gareyn karo ama uu soo gali karo. soo marka si aan qaybta dashboardka u galno website-keena ama markaasi aan qaybta dashboardka ama back-endiga markaas aan u galno, soo waxaan u baahanaa markaas inaan log gareyno. soo kaliya waxaa dhahdaa markaas /login, ama haddii kale waxaa dhihi kartaa sometimes inuu login kaadiida laga yaaba wp/admin oo u taagan markaasi WordPress/admin. soo labadaba waa isku mid. soo marka intaas aad dhahday kadib waxaa dhahdaa enter. soo marka wuxuu ku leeyahay waxaad gelisaa markaasi username-ka iyo password-ka aad soo sameysatay. soo markaan WordPress soo dejisanayno username iyo password aan soo sameysano. soo marka aad geliyo waxaa dhahdaa markaasi login. soo saa u jeeda marka hadda waxaa u jeedaa inuuna keena qaybta back-endiga ee website-keena. soo mar walba website-keena sidaas ayaad markaasi u login gareyn kartaa oo aad ugu gudbi kartaa qaybta back-endiga. soo inta waxaa loo yaqaanaa back-end, qaybta horena waa front, intana waa back-end. soo marka inta ayaad markaas ka maamuli kartaa website-kaada. soo markaan u gudubno step-ka labaad. soo step-ka labaad waxaa ku arki doonaa qaybta back-endiga ee website-kaada si loo setup garayo. qaybta back-endiga si aan u setup garayno, marka hore waxaan sameynaynaa waxyaabahana marka hore kuu soo baxay. waxaana waad iska tiraysaa in calaamadan dismiss close-ka u dhufo, sidoo kale inta fur. marka inta furto waxyaabahani TikTok aad ka qaadaysaa si meeshaan qaybta back-endiga aad u nadiifiso. marka back-endiga nadiifiso waxaan setup garaynaynaa qaybtani. waxaa tagtaa setting-ka tag, meeshaan waxaa kasii doorataa ay ku qoran tahay markaas marka koobaad general ay ku qoran tahay ka dooro. general markii aad ka doorato meeshaan waxaa kugu qoran site-ka magacaada iyo title-kaada. kuwaas haddii aan u baahanaa no problem gadaalan ka bedeli doonaa. meeshaan marka aniga register aad tigsaar si qof walba hadhow website-kaada uu soo galo. kadibna markaa intaas sameyso waxaa dhahdaa save changes ayaa leedahay. sidoo kale meeshaan marka waa tagline ay ku qoran. meeshaan waa magaca website-kaada. meeshaan waxa uu ku saabsan yahay ayaad ku qoraysaa faahfaahin. soo faahfaahin marka waxaad ku qortaa waxyaabo markaasi sida aniga hadda hadalkan oo kale aan iskaga qoraa. marka faahfaahin ku saabsan website-kaada haddii uu yahay e-commerce, haddii uu yahay mid e-learning ahaan, haddii uu yahay mid blog ah. soo waxaad ku qortaa kaliya wixii markaas website-kaada ku saabsan tagline ayaa lahaa. soo ayaduna waa save garaynaynaa. intaan kale faraha ka qaadi kartaa. marka xigta waxaa sameysaa waxaa tagtaa meeshaan ay ku qoran tahay permalinks ayaa tagaysaa. permalinks marka aad tagto waxaa hubisaa meeshaan postname ay ku qoran tahay. meeshaas postname ay ku qoran tahay inay markaas tick ku saaran tahay. soo haddii ay tick ku saaran tahay laba jeer meeshaan waxaad ku dhuftaa save changes ay ku qoran tahay ku dhufo. soo intaas ayaa ugu muhiimsan. sidoo kale hal mar haddii aan tagno marka meeshaas kore ay ku qoran tahay how the admin, waxaad ku dhufataa meeshaan ay ku qoran tahay edit profile horteeda korkeeda ku dhufo. meeshaan marka profile-kaada waad ka bedeli kartaa haddii aad rabto midabadani waxyaabahaas oo dhan waa bedeli kartaa. dhinacaas waa ka bedeli kartaa. qaybtan back-endiga marka aniga hadda colorkaas iskaga dhaafaa. marka hoos soo deg meeshaan saa ujeeda hadda waxaa ku qoran kor admin. magaca adminna waa kana. marka magaca waa iska bedeli kartaa oo kaba soo qaad magaca aad rabta ayaad ku qori kartaa. tusaalaan kaba soo qaad hadda magacan ayaan markaas iskaga qoranayaa. soo magaca marka aad ku qorto intaad turaysaa. marka meeshaan furto magacii xaggaas ayuu kaaga soo baxaa. saa ujeedo kor ayuu kaaga soo baxaa. marka magaca saas u bedeli kartaa. saas ayaa markaas magacaada aad u bedeli kartaa. markaad sameysay intaasi hoos soo deg meeshaan ay ku qoran tahay profile picture. sawirka waa bedeli kartaa oo hadda wax sawira kor kuma saaran. haddii aad rabto inaad sawir soo geliso waxaad akoonka furanaysaa markaasi website lagu magacaabo Gravatar ayaad ku dhufanaysaa inta akoon ku furaa. soo marka hadda waa iskaga dhaafeena marka waa bedeli kartaa. kadib markaa intaad sameyso update profile ku dhufo.
soo marka hadda intaas ayaa noogu muhiimsanayd qaybta backendiga markaan u gudubno stepka saddexaad oo aragna markaasi sida qaybaha kale loo habeeyo soo stepka saddexaad waxaan ku arki doonaa si loola soo dego markaas team iyo plugin si loola soo dego marka koobaad waxaan u baahnaa inaan team la soo degno oo website-kan aan markaas dhisno soo marka koobaad waxaad ku dhuftaa meesha ay ku qoran tahay appearance kadibna waxaad ka dul doorataa teams meesha ay ku qoran tahay teams markaad ku dhufato saa ujeeda hadda dhowr teamam ayaa meesha noo soo install garaysan teamka marka uma baahnid adigu hadda hal team kaliya ayaa mar walba activate ahaan oo kana hadda activate noo ahaan marka WordPress la soo degto oo markaasi qaabkan teamkan ku siina marka waan iska dileedena meeshan ku dhufo team details kan iska dhufo kadib delete ku dhufo sababtan dileedena waxay tahay hal team ayaad mar walba isticmaalaysaa soo teamkaas bis ku install garaysanaado hadii kale aad teamam badan soo install garayso website-kaada culays ayuu ka noqonaa marka waxaa u baahan tahay mar walba hal team teamka marka waan bedeleynaa team cusub aan la soo degaynaa add new mesh ay ku qoran tahay aan ku dhufaneynaa oo kore markaad ku dhufato meesha marka settingka waxaad qori kartaa teamka aad rabto teamka marka ugu caansan waxaa kamid ah Astra waa teamka markaas ugu caansan ee badanaa WordPress la adeegsado sidoo kale Cadence team la dhahaa waa ay jiraan marka Astra aan iskala soo degaynaa kadib waxaad dhahdaa install leh soo marka teamka soo install garayso waxay ku leeyahay activate soo waxaad ku dhufataa meeshaan activate ay ku qoran tahay okay maadaama hadda aan teamka markaas activate garayna midkan kore ayaan kii hore ayaan ku dhufaneynaa waa iska delete garayneynaa isaga la ku dhufo kadibna waxaad dhahdaa delete marka intaas aad sameyso hal mar kor hadii aan u baxo waxa uu ku leeyahay markaas hadii aad rabto inaad emailka aad markaas start template-ka aad teamkan Astra isticmaasho waxaad u baahan tahay inaad soo degsato wax la dhahayo markaas starter template soo in starter template waa plugins aad u baahan tahay hadii aad markaas sisan fahmin waxaan tagaynaa plugins kadib waxaan leenahay add new plugins kan ayaa waxa ku jiraan template dhowr oo website-yada lagu dhiso marka meeshaan waxaad ku qoraysaa kaliya starter template iska qoraysaa starter templates so starter template waa kana ay soo degsatay saa ujeedo in ka badan 1 milyan waxaan dhahaynaa markaas install ayaan leenahay install marka dhacday kadib waxaa dhahdaa hadana activate ayaa leedahay marka plugins kala soo degtay inta ay ku soo galaa meesha marka waxa waay meesha waxaan u jeedaa plugins ka active ka ahaan iyo kuwa aad dileed waxyaabo dhan ka arkaysaa lacal hadii aad rabto inaad plugin aad dileedo plugins ana u dhufo kartaa kadib meesha aad furaysaa waxaad ka dooranaysaa delete kadibna apply leedahay laakiin marka hore wuxuu ka rabaa inaad plugin ka deactivate dhahdo maadaama hadda active uu yahay soo sidaas plugin aad ku dileedi kartaa marka hadii lacal aad rabto inaad hadana plugin kale aad ku soo darsato add new ayaa ku dhufanaysaa soo hadda marka waxaan ku dhufanaynaa add new oo waxaan ku soo darsanaynaa markaas plugin kale plugin kale oo adeegsanayna waxa loo yaqaan Elementor sidaas ayuu u qoran yahay qayb setting kale ku qoran Elementor waa page builder ka markaas naga caawin doona in website-keena aan dhisno WordPress ka saa ujeedo plugin kan waxa soo degsatay in ka badan 5 milyan oo qof waa plugin ka markaas WordPress ugu caansan ayuu kamid yahay sidoo kale page builder marka loo imaado waa plugin iska markaas ugu caansan lagu adeegsiga badan yahay soo kaliya waxa dhahdaa install now plugin ka marka waxa kaliya drag and drop wax walba aad ku dhisi kartaa page-kaada gabi ahaanba sidoo kale plugin kan wuxuu leeyahay qayb markaas Elementor Pro oo version qayb premium ayuu leeyahay hadii aad u baahan tahay premium ka website-keena waa ka helaysaa oo waa iibsan kartaa okay plugin marka la soo degto waxa dhahdaa markaas activate ayaa leedahay okay activate marka dhahdo sidan ayuu kugu soo baxay saa ujeedo wuxuu ku leeyahay gad Elementor Pro qayb premium ama version ayuu leeyahay ahaan qaybtaas premium ka ah waxyaabo badan aad ku dhis aad ka helaysaa oo midkan Pro aad ka helaynin marka hadda u baahan kana iska isticmaaleyna marka waxaad ku dhuftaa meesha ay ku qoran tahay C library oo starter template ka hoosteeda ahaan san u aragna template-yada oo soo meeshaas ku dhufo soo C library marka ku dhufatay inta ayuu ku keenayaa template-yada iyo waxyaabahaas markaas sida u aragto hoos soo deg kaliya waxaad ku dhuftaa meesha ay ku qoran tahay build your website now marka saa ujeedo wuxuu ku leeyahay page builder dooro page builder kan soo degsana waa Elementor soo Elementor ayaan ku dhufanaynaa soo ujeedo meesha marka wuxuu na weydiinaa nooca website-ka markaas aan rabno inaan dhisno soo waxa ujeedaa meeshaan marka inaan ku heesano dhowr nooc ama dhowr website inaan ku heesano business website mid local ah mid markaas sidoo kale waxaan ku heesanaa dhowr nooc oo website hal mar midka waxaan ku dhis karnaa business ahaan agencies restaurants mid ka rabtaa dhisaysaa local business sidoo kale waxyaabahan oo kale template ku siina personal care sidoo kale selling beauty fitness mid professional finance coach waxyaabo soo marka e-commerce sidoo kale waa helaysaa marka hadda waxaan ku dhufanaynaa marka koobaad
meeshaan waxaan ku dhufanaynaa ay ku qoran tahay all horteedaan furaynaa. waxa ujeedaa wuxuu ku tusinaa qaab premium ah iyo wax iskugu jiraan qaab markaas free ahaan. kuwa premiumka ahna calaamadaas kore ayaa kor ka saaran oo kuwaas inaad iibsato waa macnaha free kuma helaysid. marka kuwa free oo kale waa isticmaali kartaa. soo hadda kaba soo qaad midkaan oo kale hadda kaba soo qaad waa free, isaga ayaan isticmaalaa, isagaan ku dhufanaa. soo marka aad ku dhufato inta ayuu ku keenayaa preview ayuu kaa siinaa. marka haddii aad rabto inaad si full u aragto waxaad samaysaa calaamadan iska xir meeshaas ku dhufo. soo tambaleedka waa kaasaa marka sidaas buu ogyahay tambaleedkani. okay footer ilaa bilow ilaa dhamaadkii sidaas uu ogyahay. page-ka sidoo kale haddii aad rabto aad ku dhufanaysaa page-ka about-ka oo kale lacal haddii aad rabto ku dhuf kartaa sidaas oo kugu soo baxa. sidoo kale page-ka surface-ka haddii aad ku dhufato waa arkaysaa isaguna sidaas buu kugu soo baxayaa. okay page-ka contact-ga haddii aad ku dhufato isaguna sidaas buu kugu soo baxayaa. soo saa ujeedo sidaas buu kugu soo baxaa. marka waxaan ugu soo celisaa home-ka ugu soo celi. marka inta waa furaynaa. inta waxaa sameyn karnaa marka waxyaabo ayaan bedeleynaa, loogada iyo waxyaabahaas bedel ayuu ku leeyahay. marka waxaas hadhow ayaan website-kan ku dhex bedeleynaa. marka kaliya waxaan ku dhufanaynaa meesha ay ku qoran tahay skip and continue ku dhufo. sidoo kale wuxuu ku leeyahay marka inta tambaleedkan aad soo degin colorkiisa daab garayso, colorka nooca rabta ka dooran kartaa. waxaad ka dooran kartaa guduudka noocana ka dooran kartaa. kanaad adeegsan kartaa. marka hadda midkiisa default colorskan iskaga dhaafeena. sidoo kale meeshan wuxuu ku leeyahay ujeeda fontigan waa bedeli kartaa. oo fonti noocaad rabta adeegsan kartaa, tan adeegsan kartaa. marka waxaan leenahay fontiga defaultiga ah nagu soo celi markaasi. okay marka intaas markaas sameeyay continue ayaa leedahay. waxyaabahan dhan hadhow ku tusa sida gadaal loogu bedelo. sidoo kale inta meeshan wuxuu ku leeyahay magacaada iyo waxyaabahaas geli. marka waxaan leenahay submit and build my website aan iskaga dhufanayna. marka template-ka uu ku soo degaa waad sugaysaa ilaa meeshan inta markaas 100 ka gaarayso. soo markii template-ka uu ku soo dego waxaad ku dhuftaa meesha ay ku qoran tahay view your website ku dhufo. soo marka hadda saa ujeedo view your website marka dhahdo template-kii waa ku soo install gareeyay oo website-kaada ayuu markaas kugu soo dhaxsho. markaas saa ujeedo page-kii wixii dhammaay waa haysanaa, about tan ku dhufana waa haysanaa. soo page-ka dhan saa ujeedo caadi ah ugu shaqeynayaan. marka xitaa haddii aad rabto inaad markaas page-kaada edit garayso waxaad ku dhufanaysaa meesha edit with Elementor. soo marka step ku xiga ayaan arkaynaa marka sida page-ka markaas oo dhan markaas loo edit karayo markaas oo loo bedbedelo oo loo habeeyo. soo step-ka afraad waxaa arki doonaa markaas sida website-kaada markaas loo hagaajiyo oo loo bilaabo dhisitaanka website-kaada. soo si aan marka website-kan haddaan u dhisno saa ujeedo hadda waxaan dhex taaganahay page-ka home-ka. marka hore waxaad hubisaa page-ka aad rabto inaad markaas aad dhisto ama edit aad ku sameyso inaad dhex taagan tahay. page kale ku dhufo. hadda home-kan taaganahay. marka home-ka taagantaa waxaa ku dhuftaa meesha ay ku qoran tahay edit with Elementor. Elementor waa plugin-kii markaas aan soo degsanay oo page builder-ka ah website-ka lagu dhiso haddii aad xasuusto. soo marka isaga ayaad ku dhufanaysaa. kadib saa ujeedo wuxuu ku dhex keenayaa page-ka markaas wuxuu ku dhex keenaa soo marka ku dhufatay inta ayuu ku keenayaa meeshan. marka waa meeshan website-keena ka hagaajin lahayn ama ka dhisi lahayn. marka ugu horeyso waxaana bidixdaada kaaga muuqda saa ujeedo waa Elementor-kii. haddii aan meeshan xiro aan tan xiro waxyaabahan basic haddii aan ku sharxo wax kale ma aha oo haddii aad furto mid u horeyso basic ahaan meelahani waxyaabahani waad ku soo dari kartaa. kan waa heading, kan waa image, kan waa text editor. intana sidoo kale qoraalka haddii aad rabto isku dhufato waa bedeli kartaa si la mid ah. marka meesha haddaan xiro middaani aan furo ay ku qoran tahay biro optionadaani ma isticmaali kartaa. haddaan hadda mid ka mid ah soo jiido fiir wuxuu ku leeyahay waxaa u baahan tahay markaasi plugin-ka biro ayaa u baahan tahay. Elementor-ka qayb maxaa jirta markaas premium ahan oo waxyaabahan oo dhan aad helayso. marka kani ma laha. marka waxaad samaysaa qoraalkana la rabnaa inaan bedelno. waxaad samaysaa kaliya qoraalkaasi ku dhufo. qoraalka marka aad ku dhufato waxaa ujeedaa meeshan uu ku keenayo ku qoran tahay title. meeshan marka waa meesha qoraalka ay ka bedeli karto. soo kaba soo qaata waxaan iskaga qoraa qoraalka sidaan ahani. marka qoraalka aad saas u qorto waxaad furtaa midaan kale ku dhufa haddana oo ka hooseyso. kadibna qoraalkan inta ku dhufa isaguna waxaad ku qortaa marka waxyaabii aad rabto markaas ku qor. okay soo saa ujeedo marka hadda haddii aan meeshaas ka laabo waxaa ujeedaa qoraalkii markaas inaan bedelnay si la mid ah. marka qoraalka marka maadaama aan bedelnay waxaa rabtaa inaad qoraal aad kusoo daratay iska aad u leedahay. meeshaan basic-gan hoosteeda meel ay ku qoran tahay heading ayaa jirta. heading-kan waa soo jiidi kartaa intaa keeni kartaa. okay hadda heading-kan aan soo qaaday intaan kusoo dhex daayay saa ujeedo wuxuu ku leeyahay waxaad ku dartaa qoraal markaasi kala duwan ku dar ayuu ku leeyahay.
marka soo sidaas aad u sameeyni kartaa marka haddii aadan rabin marka aad rabto inaad iska dileedo midkaan oo kale haddaan kusoo daray qalinkaas aad dul imaanaysaa qalinka markaad dul imaado meesha koro qalinka aad ku dhufanaysaa kadib waxaad ka dooranaysaa dileed ayaad ka dooranaysaa saasaa u dileedi kartaa soo marka wakaasa sidoo kale marka bottomkan haddana ma bedeli karnaa yes bottomkan waa saa u bedelno qalin kale ku dhufo isaguna qalinka ku dhufo qalinka marka ku dhufato meeshaan waxaa ujeedaa tagasta ay ku qoran tahay qoraalkii bottomka ayaa ku qoran soo maxaan leenahay markaasi qoraalkan waa bedeleynaa qoraal noocan oo kale ayaa iskaga qoraa kaba soo qaad qoraal noocan oo kale ayaa iskaga soo qoraa marka bottomka sidaas u qorto meeshaan waxaa kusoo dari kartaa marka link ayaad kusoo dari kartaa okay kaba soo qaad linkiga muxuu yahay linkiga macnaha markuu qofku bottomkan ku dhufto wuxuu dhex geenayaa markaasi meel linkiga ama page kale ayuu dhex geenayaa ama meel kale si marka fudud linkiga waxaad ugu soo dari kartaa lacala page-ka hadda noo samaysan page ka mid ah waa ku xiri kartaa oo kaba soo qaad meeshaan waxaan ku qoraa page-ka Surface oo kale meeshaasaan ku qoraa link ay ku qoran tahay meeshaan marka waxaan rabaa page-ka Surface inuu soo boodo soo ma jeedo page-ka Surface ayaa soo boodo oo ku dhufanaysaa automatic marka link bottomkan waxa ku xiran linkigaas waa linkiga qofka geenaya markaasi page-ka Surface ayuu toos u dhex geenayaa soo marka uu kaasa sidoo kale meeshaan size-ka intan waxa ku haysta alignment linkigan bidixdaada waa dhigi kartaa dhexda waa dhigi kartaa geeska waa dhigi kartaa meesha arabto soo hadda dhexdan ku dhaafeena meeshaan marka ay ku qoran tahay size cabirkan haddii aad furto hadda wuxuu yahay bottomka small dhexdhexaad waa ka dhigi kartaa large waa ka dhigi kartaa waa weyneyn kartaa soo ma dhaqdhaqaaqayo isagaa hadda weynay la tahay okay marka inta sameeyay meeshaan waxa ku soo dari kartaa waxa la dhahay iconadan qaar marka waad ku soo upload gareyn kartaa sida meeshaan oo kale haddaan ku dhufto meeshaan icon library ku qoran tahay dhibicdaas tan ku dhufto wuxuu dhex geenaa markaas maxal ahay meeshaan uu geenaa meeshaan marka iconkii alaal iconka rabo ku qori karaa kaba soo qaad waxaan ku qori rabaa iconka la dhahay kaba soo qaad cart oo kale midkan dambiisho kala raba inaan ku soo daro kanaan rabaa waa ku dhufanaa bes meesha markaan ku qoro insert aan leeyahay fiira hadda marka waxaan ku jeedaa inaan ku soo jaro markaas inaan ku soo daray iconka marka mid waa sameyn kartaa icon positionkan gadaal iyo hore waa ka mari kartaa haddii meesha furo after waa dhihi karaa beforna waa dhihi karaa soo lacala kaba soo qaad marka iconka ma wareetid inaad bedesha ay rabtaa maxaa sameynaysaa waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay non soo ujeedo wax icon hadda markaas ma soo saarmaya marka intaas aad sameyso si lamid ah haddii aan meeshaas kore oo ku dhufto oo dhibcahaas kore waxa ujeedaa meeshaan waxa la dhahay bottom oo kale inaan soo jiidi karo bottom intii inaan soo dhigi karo okay aan dhexda keeni karo aan qoraalkan rabo aan ku qoro karo soo uma baahnin marka maxaan leeyahay raad kaliya leeyahay kadib delete marka waxyaabaha dhan waa ku soo dari kartaa macnaha qasab maaha kaliya inaad kuwan adeegsato si lamid ah marka kuwani maxaa la dhahay fartan iyo waxyaabahan cabirkooda waa hagaajin kartaa lacala fartan inaa cabirka hagaajiyaa rabaa qoraal kale ku dhuf qalinka meeshaan markii wax la hagaajinayo color ahaata far ahaata style la tagaa okay taas niyad ku hay style-ka marka laba ku siinaa mar waa typography haddii horteeda furto wuxuu ku siinaa farta weightkeeda farta small meel ay ku qoran tahay transform capital ma laga dhigaa small meel waxa ku qoran style-keeda ma la jiifina saan ma laga dhigaa mar walba waxa ku soo laaban kartaa default-kaada meeshan transform laha transformka wuxuu ku leeyahay lower case man ka dhigaa ma yaryareyna ama upper case aan ka dhigaa ma capitalize aan ka dhigaa mid ka rabto ka dooran kartaa hadda default-kaas ka dhaafina meeshan waa farta culeyskeeda kaba soo qaad 900 man ka dhigaa uu ku leeyahay 500 man ka dhigaa 300 man ka dhigaa soo waxaan leen default-keeda aan iska dhaafina sidoo kale meeshaan haddaan ay ku qoran tahay waxaan leenahay markaas upper case noogu wadarig marka intaas aad sameyso meeshaan waa marka meesha laga bedelayo cabirka fartaada 80 hadda marayso haddii aad rabto inaad yareyso taas le maanta dhan waxa la dhahay aad riixi kartaa macnaha wax sidaas weyn ma aha okay wax sidaas weyn ma taas aad riixi kartaa hadda intaas aan ku dhaafaa meeshaan family ay ku qoran tahay horteeda fur iyaduna marka furto maxaa helaysaa meeshaan waxa ka bedeli kartaa iyaduna sidoo kale fartaada nooca tahay kaba soo qaad okay nooca tahay fartan walba nooca rabta aad ku qoraysaa farahan dhan midka aad rabto ka dooran kartaa haddii aad rabto meeshaan faraha ku qori kartaa fartan bobbins ko kale iska qora bobbins wakaasa haddii aad rabto marka inaad sidaad ku soo laabato control z leedahay bis control z leedahay oo ku soo celina marka intaas sameyso marka meeshaan ay ku qoran tahay marka waxaad tagtaa text color inta waa marka had meesha laga bedelayo midabkiisa okay midabkiisa oo dhan inta ayaad ka bedelaysaa soo ujeedada seelata cadaan wax walba arkaysa haddii rabto inaad ku qorto tagta bluegan oo kale kan riix kan marka riixda kadib halkaas ka sii maamul isaguna haddii aad rabto inaad sidaad ku soo laabato meeshaas kore iskaga dhufo oo markaas maxaa la kor ah sidoo hore ku soo celinaa laakiin xogaa waxa ujeedaa inuu kii hore dugduugo lahay kasto yar sidiisaan iska dhaafeena sidoo kale bottomkana keen marka isaguna okay kana fartaan aan rabaa labaad farta hoose hal mar
style aan tagaa style markaan tago meeshan typograph waa fura meeshan weightka waa 300 hadda waa khafiif waxaan ka dhigaa kaba soo qaad 400 oo kale aan ka dhigaa okay 400 oo kale aan ka dhigaa ama 300 aan ka dhigaa kadib waxaan sameynaa wax yaraan yareeyna iyaduna sidoo kale bottomka hadaa rabto inaad bedesho waxaad sameysaa bottom kale ku dhuf meel erm tagaysid style ta kadib style markaad tagto marka meesha maxaa ku haystaa text color bottom color waxa dhan waa bedeli kartaa marka hal midaan ku sheegaa markaas oo kuwan oo dhan maxal lahaay oo xisalaan meeshan ay ku qoran tahay hover hadii aad ku dhufato bottomka hadda marka qofka dul imaado midabkiisu isbedela midabkiisa haduu isbedelan animation ku soo dar kartaa meeshan hover animation ay ku qoran tahay fur animationada mid ka rabto ku soo dar hadda fiir bottomka dul imaado animation oo siina kanaan kala ka doorana ka soo qaad animation kan saas oo bedelma color kan oo kale ina isbedela rabtaa maxaad ku dhufanaysaa meeshan ay ku qoran tahay ka soo qaad text color ma waxaad ku dhufanaysaa meeshan ay ku qoran tahay markaasi background color ka la rabaa background color ka waa halkaas weyn soo background color ka inta ka sii dooranaysaa waxaan rabaa gaduud oo kale aan leeyahay ka soo qaad okay markaan dul imaado fiir gaduud oo isku bedela qoraalka hadii aad rabto isaguna waxa ka dhigi kartaa madow ka dhigi kartaa oo marka dul imaado qoraalkii madow kaasna gaduud isku bedela hadaa rabto inaad sidaad ku soo laabato waxaan dhana control z la taabanaysaa wax kale ma sidaad ku soo celinaa kaasa so marka intaas sameys marka meeshan ku xigtana keen marka okay meeshan ku xigto waxyaabo badan meeshan aad ka bedeli kartaa waxyaabo badan hadii lacal aan rab inaan section kale aan ku soo darsado meeshan aan ku qoraa calaamadan balaskan fura kadib meeshan aan ku balasan ka doorna imisa section aan rabtaa ku leeyahay lacal waxaan leeyahay section oo kale ayaan rabaa soo hal section markii aan soo qaato meeshas koran fura markaan furo waxaan ka soo dooranaa heading inta ayaan ku soo dhex tuuraa marka headingka marka qoraalku waa bedelaasan hadaa u soo sheegno waxyaabahan waa bedeli karnaa dhahnay okay or services markaan saas u qoro waxaan keenaa meeshan dhexda ayaan keenaa meeshan marka furi kara hadaa rabo h1 waa ka dhigi karaa qoraalkan waa yar weyneyn karaa style aan tagaa marka asigoo h1 yahan sida hadaa ku soo sheegay typograph tag farta inta ka yareyso marka okay typograph tag farta inta ka yareyso okay marka inta ka yareysato waxa tagtaa meeshan ay ku qoran tahay style advanced marka tagtaa hadda fiiro qoraalkii intiina isku dhagan yahay umaleysa kisto hadii aad rabto inaad soo yareyso meeshan top kaliya waxa siin kartaa 10 ayaa siin kartaa saa ujeedo hoos wax yar ka soo daga hadaa rabto 20 ayaa siin kartaa wax yar hoos ka soo daga kan marka sidoo kale meeshan aan ku dhufanaa edit section kan ay ku qoran tahay ayagoo dhan advanced markaan taga hadda fiiro meeshan or surface ka kan wax weyn u dhaxay marka meeshaas ku dhufo advanced tag top ka fiiro macnaha waa 80 waa bedela at least waxaan ka dhigaa content inuu isku dhawaadaan rabaa okay saasan ku soo dhaafa ibran siinaabo hadii aan xiro fiiro markaasi so waxa ujeedaa markaasi inaan maxal ahay isku yar dhawaadaan or surface marka mid samee meeshan marka ay ku qoran tahay maxal ahay meeshan ay ku qoran tahay markaasi kore edit section kaas kore ku dhufo meeshan maxaa ka bedeli kartaa sawirkan waa iska bedeli kartaa hal mar style tag marka edit section ku dhufato waa kana sawirkan oo saaran okay sawirkan hadaa inta ku dhufto media library hadii aan tago wuxuu ku tusinaa sawirada so nooc walba sawir ah meeshan waa bedeli kartaa sawir walba markaas aad haysato hadaa rabto upload file salada select file computer kaada markaas maxal ahay aad sawir kamid ah markaas aad ugu soo darsan kartaa okay sawir kamid ah computer kaada ku soo darsan kartaa soo hal mar tusaale yar aan sameeyno okay select file aan dhax ka soo qaad okay sawirkan oo kale ayaan ku soo darsaday ka soo qaad sawirkan oo kale aan ku soo darsaday sawirkan laba jeer ku dhufanaa markaan ku dhufto sawirka inta ay keenaa wax yar oo suga kadib waxaan leeyahay insert media ayaan leeyahay yes waxa ujeedaa sawirkii inuu isbedelo okay sawirkii inuu isbedelo marka saas u bedeli kartaa aniga hadda marka maxaan sameeynaa ma rabo sababtoo ah inaan bedelo sidiisii hore iskaga dhaafeena okay sidiisii hore iskaga dhaafeena sawirkiisii hore ayaan siinayna sawirkiisii hore waa kana iskaga dhaafeena okay sidiisan faraha ugu qaadayna marka intaas sameys marka or surface ka handaa imaada meelahan sawirku waa bedeli kartaa web design oo kale hadda waa fura inta kanaan ku sii doorana upload file la ka soo qaad sawirkan oo kale ayaan rabaa web design iskaga soo daraa sawir u eg markaasi okay web design sawirkan oo kale aan ku soo daraa ka soo qaad waxaan leeyahay insert media ayaan leeyahay soo ujeedo sawirku waa bedelay kan graphic design ka fura isaguna intaan ka sii doorana waxaan leeyahay ka soo qaad upload file select file aan leeyahay
select file markaan dhaho sidoo kale maxaan sameynaa markaasi graphic design kanaan soo qaadanaa insert media ayaan leeyahay sidoo kale kan saddexaad intaan ku dhufanaa markaasi waa furaa inta upload aan leeyahay select file aan leeyahay sidoo kale kanaan soo qaadanaa isaguna sawirkaasi kadib waxaan leeyahay insert media okay saa ujeeda marka sawiradaas waxaa ujeeda inaan kusoo daray su-aasha laga yaabaa in isweydiinaysa sawiradaani meelahan ka keenay waxaa jira website la dhahayo magaciisa qiyaasa wuxuu ahaa factor website factor wax sidaas ayuu ahaa magaciisa haddii aad raadiso waa helaysaa linkigan waxaan isku dayaa description-ka inaan dhigo insha allah hadda kahor kama xasuusto marka u kaasaa meeshaani faahfaahinta waad ka bedeli kartaa qoraalka text editorka haddaad ku dhufato waa kana text editorka markii aad ku dhufato markaasi inta waa ka bedeli kartaa kana waa ku dhufan kartaa waa bedeli kartaa ciwaankan waa bedeli kartaa intii aan soo sheegno leewaaye meeshan sidoo kale about us iyaduna si lamid ah markaasi waa bedeli karnaa okay about us haddaan rabno sawirkan waa bedeleynaa inta ku dhufo kadib intii imaam markaasi kadib waxaa dhahdaa upload file kadib waxaa dhahdaa select file okay select file markaa dhahdo about us kan sawirkan oo kale aan soo qaadanayna kaba soo qaad kadib waxaan leenahay insert media good soo ujeedo waa bedelan haddii aad rabto marka style aad tagto image sawirkiisa waa yareyn karnaa sida ula socdo meeshaan wirtiga oo ka saacbalaca image sawirkiisa qasamaha inta silaakaada waa yareyn kartaa mar walba soo kana xoogaa waxaan sameynaynaa about us kan waxyara intaan tagaynaa style aan tagaynaa typography aan leenahay horta fartiis kasta yar waa weyneynayna meeshaan defaultiga waa furaynaa waxaan ka dhigaynaa ilaa 500 oo kale aan ka dhigaynaa ama haddii ka 600 ka dhig saa weyney kasta yar marka inta sameyso meeshaan hoosena waa bedeli kartaa tagto as ay ku qoran tahay waxaad rabto ku qori kartaa haddaad rabto sawirkan paragraphka waa bedeli kartaa gadaale soo marka inta sameyso update aa leedahay meeshaas hoos ku dhufo update shaqada markaa qabato qofka marka hal mid intaan page-kan ka bixin qofka lacala soo kula soo xiriiro meeshaan button-kan get touch-ka ku dhufo hal mar meeshaan linkiga siinay page-ka waa page-ka waxaa siisaa contact-iga si hadhow qofka uu kala soo xiriiri karo wakaas asiga automatic ku soo qabana contact-ka dooro soo page walba mid walba isku day inaad ku xirto meelahan oo kale hadda bottom hataa ku soo dari karnaa oo hadhow surface-ka waxyaabaas aad ku xiri karto page-ka ahaan marka inta sameyso marka waxaa dhacdaa update ku dhufo update marka ku dhufato meeshaan fiir marka meelahan option ayaan ku haysanaa option-kan koobaad waa responsive mode kan hadii aan ku dhufano waxaad u jeedaa meeshaan inaan ku haysano mobile iyo tablet website-ka dadka mobile-ka haysto soo ugu muuqana mobile sidaas ugu muuqana hadii aan kor u laabto dadka mobile haysto sidaan ugu muuqana marka qoraal ku dhufo mar walba hubi markii aad website-ka intaadan finish dhihin mobile-ka ku habay isma laha mobile-ka iyo computer-ka hadda fiiri soo kaba soo qaad sidaan ugu habeeyay maxaa la dhahaye mobile-ka kale dadka mobile-ka haystaan ugu soo baxaa maadaama marka ku habay farta ku aadi hadii aad rabto inta wax yar waa yar weyneyn kartaa mobile-ka hadii uu shaashadiisa yar weyn yahay kan ku dhufo typography wax yar waa weyneynayna marka inta sameyso hoos soo deg tan way weyntaas u jeedo ku dhufo iyaduna style tag markaasi typography de farta yar islamida iyaduna okay hubi markaas ina yarayso marka intaas sameyso marka kuwan hoos soo deg way wanaagsan yihiin wax qaldan ma laha okay intaas marka aad sameyso sidaas faraha ka qaad dana tablet-ka tag dadka tablet-ka soo u arkayaan tablet-ka inta badan automatic u habeysma isagu shaqo weyn kaama rabo oo kaasa meeshaan xoogaa space weyn inuu dhaxaysa ujeedaa inta edit section-kan ku dhufo top-ka waa 70 ujeedido 0 ka dhig bahal mar okay mobile-ka imaaw section-kan surface-ka fiir mobile-ka waxa ujeedaa inuu wax badan u dhaxayso ku dhufo kor 40 u dhaxayso 40 kab iska tir okay sa isku dhaweyso calaamada hadaan iska xir hadda daawankaas anigoo update dhihin mobile-ka saas ugu muuqana tablet-ka saas ugu muuqana mobile-ka kale sidoo kale hadii aad kor u laabato menu-giisa kaas sidaas ugu muuqana waa bedeli doona kuma arki doona qaybaha kale ee video-geena marka intaas aad sameyso marka ugu dambeyn update marka dhad hadii aad rabto shaqadii waxa sameysay meeshan ay ku qoran tahay preview changes ku dhufo mar walba meeshan waxa kala socon kartaa isbedel website-ka marka ku sameyso qaabkiisa soo weegiya waxyaabahaas oo dhan soo preview hadda daan dhaxwa kana marka sidaan website-kii page-kii koobaad aan sameynay oo eekaana sawiradiisa ujeedo wixii dhamaayo isbedeleen sidaas ayuu markaas u qurxinaa
marka ladies and gentlemen intaan ku ekeenayna qaybaha kala arkayna sida loogadan loo bedelo qaybtan headerka loo habeeyo waxyaabahaas oo kala arkayna marka soo step xiga ayaan oo bal soo step shanaad waxa ku arki doonaa sida markaas website-kaada loogu sameeyo logo soo si aan marka loogu sameeyno waxa jirto tab cusub ayaad furaysaa marka waxa jirto website markaas free ah oo aad ka helayso markaas logada iyo waxyaabahaasi website-kaas waxa loo yaqaanaa markaas free waxa loo yaqaanaa website-kaas logo maker.com sidaas ayuu u qoraya meeshas marka waxa ka maqan ayaa ka maqan waa logomaker.com kadib waxa dhada enter soo website-ka naga caawin doon inaan markaas looga qurux badan oo aan sameeyno waa website-kani qayb website-yada loogada lacag ku bixi kartaa laakiin inta badan wuxuu ku siinaa farshino free ah kuwaas oo markaas aad loogada aad ku dhis karto soo markaas aan u bilaawno dhisida loogadeena waxaan ku dhufanaynaa meesha ay ku qoran tahay start my design tab cusub oo markiiba ku furo ku geynaya soo marka sidaan ayuu kugu soo baxaa marka ugu horeysa waxaan ku weydiinaa ku leeyahay new design abuur ama shaqadaada hore u wado marka waxa jirto waxyaabo aan hore u sameeyay logooyin marka hadda waxaan leeyahay create new design adigana halkaas ku dhufo waxyaabaha nagast iska dhe soo marka inta ayuu ku keenayaa marka meeshan waa meeshan loogada ka sameeyay lahayn bidixdana marka waxaan ka bilaabaynaa meeshan waxaan ku haysanaa waxyaabo tagasti iyo shapes iyo colors iyo waxyaabahaas aan ku haysanaa marka u horeysa waxa ku dhuftay tiidan marka ku dhufatay inta uu ku weydiinaa wuxuu ku leeyahay wax ku qor marka waxaan ku qoraynaa logada markaas magaca website-keena leeyahay dabcan so magaca website-kaada loogu ku sameeyo la eg markaas u dhiganta macnaha ku qor so aniga hadda kan ayaan ku qoray marka logada saa u jeedo meeshani inaan qurxinayna gartaa marka hore kooda hore highlight-aan wada saarayna meeshan marka waxaad ka dooran kartaa color-ka hadda highlight ii wada saaran haddii aan guduud aan ku dhufto fiiro logada waxay isku bedelaysaa guduud ayay isku bedelaysaa okay so marka waxaan sameynaynaa waxaan ka dhigaynaa madow ayaan ka dhigaynaa okay madow markaan ka dhigno waxaan furaa meeshan ay ku qoran tahay markaas style meeshaasaan furaa marka furta meesha marka hore bold ka dhig horta bold marka ka dhigto meeshan waa muhiim waxaad line wurtiga meeshan waa ka weyneyn kartaa marka hore khafiifkaas ay ahayd laakiin xogaa line wurtigan waxa fiican marka hore aad iska yar waa weyneyso si looga ugu soo baxda hadhow okay marka inta sameyso calaamahan hareeraha geesaha u jeedo drag waa sameyn kartaa waa soo gaabin kartaa space ka cunayaan hadii kale logada marka aad rabto wax yar waa yareyn kartaa kisto yar soo yareyn kartaa okay marka hadda looga aan sameynay logo kaliya marka dhinac ma yeelanayso waxaan u baahanaa shape aan u baahanaa dabcan meeshas marka hore ay ku qoran tahay search ayaa waxa ku qoraysaa marka shape alla shape-kii aad rabto okay shape-ku way badan yihiin magacyadooda kuwaas shape-kan oo kale ka soo qaab waxaan iska qoraynaa shape markaas ahaan mountain shape waxyaabo noocan oo kale iska qoraa ka soo qaad soo shape alla shape-ka rabto ka soo qaadan kartaa dabcan waxaan oo dhan waa free soo shape-kan soo qaadana wuxuu noqonaa markaas ka soo qaad haddii aad rabto hoos soo soco kartaa boqolaal shape markaas aad helaysaa soo ka soo qaad kana iska soo qaadana shape-kani soo waa un tusaale shape-ka marka soo qaadato marka koobaad meeshan midabkiisa waa bedeli kartaa soo midabka tusaale ahaan ka soo qaad website-keena oo kale ayaan la ekeenaynaa haddii aan rabno aan la ekeysiinaynaa marka waxaa sameysaa marka aad saas midabka aad u sameyso saaskiisa yaray marka saaska yaraysana waad soo jiidaysaa waxaad la ekeysiinaysaa qoraalka la ekeysiinaysaa soo hubi asiga iyo qoraalka inay mar walba isla ekaadaan si markaas loogadaada ee markaas u qurxanaato okay soo hadda markaas sidaas ku dhaafo intaan waa ku dhaafi karaa markaas meeshan hoose ay ku qoran tahay crop ku dhufo meeshan muhiim waaye crop marka ku dhufato meeshan waxa ujeedaa geesaha ka soo jar inuu ku leeyahay oo hadhow space-yadaas oo dhan uma baahnid logada marka sameynayso waa inaad geesaha ka soo jartaa soo hubi marka inaad geesaha aad ka wada jartay sidaan ayaad u sameynaysaa kadib waxa dhahdaa markaas calaamadaas tigta ay ku dhufo ay sax saaran tahay soo marka sidaas ayuu kugu soo baxaa markaas haddii aan rabno xoogaa midabkaani waxa umaleysaa markaas inuu nooc kale yahay still wax yar jaanja ayaan ku sameynaa waa nooleynayaa marka intaas aan sameeyno marka meeshaas kore aad ku dhufanaysaa save ay ku qoran tahay logo kadib meeshaan marka wuxuu ku leeyahay free haddii aad rabto midaan ku dhufo marka free maadaama aan rabno inta ayaan ku dhufanaynaa download kadib waxaan saaraynaa meeshaan tick accept terms ku aqbalna leenahay kadib meeshaan marka
waxaan ku dhufanaynaa download free low resolution file waa markay free tahay haddii aad baro rabtodana waa inaad markaasi license aad rabto inaad sameyso inaad lacag bixisaa marka midaan free oo kore ku dhufo soo saa ujeeda marka loogadaadi wataasa sidaas ay markaasi kugu sameysmatay marka waa iska xireenaa tan marka xigta marka intaanan ka bixin loogada soo saa ujeeda meeshaani hadadan waxaa ujeedaa markaasi website walba markii aad gasho inuu kuu soo baxayso meeshaas kore waxa la dhahay site icon inay looga astaan ku sameysan tahay marka qoraalkani waa iska dileedina anaga website-keena marka si lamid ah waxaan u baahanaa markaasi inaan u sameyno markaasi site icon ayaan u baahanahay soo site icon-ka haddana mid automatic oo wata oo WordPress ah aragteen marka meeshaas kore si site icon aan u saarano site icon-ka loogadeen ayaan saaranaynaa marka waxaan sameynaa midaan ayaan qoraalka iska dileedaysaa ujeedo waxaan isticmaalaa shape-kan kaliya shape-ka marka waa yareynaysaa crop-ka ku dhufanaysaa haddaan ku dhufanayo kadib geesaha waa ka wada jaraysa asigoo dhan okay saasaad ka dhigaysaa markaas intaas la ekeysiinaysaa waa yareynaysaa haddii dabcan aad rabto hataa midabkiisa waa bedeli kartaa kaba soo qaatay midabkiisa kale waxaan ka dhigaa ama sidiisa hore aan iskaga daynaynaa okay hal mar waxaan sameynaa sorry sometimes sidaan oo kale ka noqonaya kaliya waxaad sameynaysaa waa dareegaas oo sameynaya waa soo jiidaysaa kadib crop baa leedahay sidii kugu soo baxaa marka saa ujeedo marka waxaan sameynaa isagaasan save ayaan leeyahay kadibna meeshaan ku dhufanaa download kadib intaan tigaan saara kadibna waxaan leeyahay download free low resolution file soo marka shape-kan adeegsan doona waa kan ayuu noqon doonaa markaasi soo marka waan iska xiraynaa kan marka step ku xigaan ku arkaynaa qaybta header-ka sida loogada loogu soo daro iyo bahalkan site icon-kan kan waxaa la dhahaa marka site icon la dhahaa meeshaas kore ee website-ka ayaa la dhigaa marka labadooda step marka loogada sameynayso asigana ku dar inaad sameysto markaas haddii aad rabto meeshan hataa xarafaad ku qori kartaa w ahna magaca website-kaada uu ka bilaabanayo bas marka step ku xigaan gudubno soo step-ka lixaad waxaa ku arki doonaa markaasi sida loo dhiso markaas header and footer-ka ee website-kaada header-ka waxaa la dhahaa marka qaybtan kore ee markaas ku qorantaa loogada iyo pages-ka iyo home about-ka haddii aan soo degnana qaybtan hoose waxaa la dhahaa cadaanka aan footer la dhahaa soo qaybtan kore header-ka iyo footer-ka saan u hagaajino marka iyo sidaan loogadaasi markaas site-ka koraan haddaan soo sheegayno kaas aan u bedelno waxaan tagaynaa meeshan ay ku qoran tahay markaas customize ayaan tagaynaa soo customize markii aad ku dhufato haddii marka aan dul imaado meeshaan fiiri qalinkaas ayaa markaas soo baxayo oo markaas waan bedeli karaa marka si fudud si aad u tagto markaasi qaybtan header-ka marka koobaad waxaad hoos soo deg meeshan ay ku qoran tahay site identity site identity ayaad furaysaa markii aad furto laba waxyaabood ahaynaa kooda hore wuxuu ku leeyahay select site icon waa midaasi kore iyo select logo marka hore site icon saan u doorano aan u doorano inta ku dhufo kadib waxaa dhahdaa upload files logadii site icon-kii yaray ee soo markaasi haddii aan soo sameysana ayaa markaasi kor soo saaraynaa soo marka aad kusoo darto marka site-ka waxaad ku dhufataa markaasi select ku dhufo saa ujeeda xoogaa hadaa waa yara weyneynay marka aad soo save garanayso hubi inaad markaas side aad u yarayso marka wuxuu ku leeyahay cabirkeedu ku aadi okay kaba soo qaad intaas camal ayaan ku aadinayaa kadib waxaan leeyahay markaasi crop image ayaan leeyahay waxaan rabaa marka sawirkaas kor inuu isbedelo okay waxa yar sug markaasi isaga ayaa isbedelayo automatic soo site icon marka sida soo saarato marka xigta waxaad ku dhuftaa meesha ay ku qoran tahay site title and logo ku dhufo oo hoosteeda ahaan markaan ku dhufano isaga waxyaabahan ayuu noo soo bixinaa soo waxaan uma baahnin marka waa iska qarinaynaa meeshan hoose ku dhufo hide builder ay ku qoran tahay intaani marka hal ayaan u bedelaynaa kooda hore horta marka ugu horeysa haddii aad rabto website-kaada sidaad ugu arkaysa tablet sida halkaasi ku dhufo haddii aad rabto mobile qaabka uu soo baxaya halkaas ku dhufo marka koowaad waxaan ka bilaabaynaa desktop soo saan loogadan dhan u bedelno waxaan ku dhufanaynaa change logo kadib waxaan leenahay upload files ayaan leenahay kadibna waxaan leenahay select file logadii aan soo sameysan ayaa markaas soo qaadanaynaa logada markaas soo qaadato waxaa dhahdaa marka select soo saa ujeedo marka logada waa la ekeysiin kartaa isagu cabirkiisa geesaha uwad bahalahaas falaarahaasi oo markaasi ilaa ay markaas isla ekaadaan marka intaas aad sameyso crop image la iskaga dhufo soo saa ujeedo logadani wataasa dabcan logada waa ayarta cabirkeeda hoos soo deg meeshaan logo width ay ku qoran tahay 96 waa hadda wax yar korwad okay tirada markaas ugu dambaysa ee gaaraysa markaas waa intaasi halaas kaga dhaaf
okay sidoo kale tan waa bedelena rational log waa loogada kale ee soo raacay change image ku dhuf iyaduna isla loogadii waa tan hadaan adeegsanayna isla iyadii la dooro automatic aydan isku bedelaysa marka intaas aad sameyso hal mid marka intaan kuwan kale u gudbin mobilka aan fiirino mobilka hadii hoos aan ku dhufto meeshaas hoose mobilka aan ku dhufto sidaan bay igu soo baxaysaa soo waan ku dhufana isaguna si la mid ahaan waxaan rabaa inaan xoogaa markaas height kor aan u qaado sorry heightkiisa waxaan ku soo dhaafaa sidii hore waxaan rabaa inaan cabirkeeda aan bedelo intaan ku dhufanaa hoos aan usoo degaa marka looga wirtiga mobilka waa 96 sida haday iyaduna sidoo kale weynay marka okay waa weynayn kartaa saa ujeedo soo cod ku haysta malaha isla ekaysi kartaa labadooda soo marka mobilka waa sidaas tabletka dhexdana gay tabletkan sidaan ugu muuqanaysa soo tabletkan waa 96 asaguna soo wakaasa isaguna waa la ekaysi kartaa ilaa tiradii kala camalan geenina soo hada mar koobaad mobil markaan tablet haysana computer waa sidaan tabletka sidaan ugu soo baxaysa loogada mobilkan sidaan bay ugu soo baxaysa okay mobilka wax yar waa yareynayna okaasa marka intaas asameyso tabletkan uu soo celi marka soo tabletka marka imaana marka nagasta hadda waxaan aragnay sida loogada loo hagaajiyo okay loogada si loo bedelo meeshan waa side title-kii iyo sideline-kii waxyaabahan waa iska dhaaf kartaa okay waa ka laabanayna marka inta markooba shaqadaad horta u save gareysata publish dhaho saysan hadhow wixii kore kaaga dhumin markaas publish leeyatan update ma aha marka inta sameyso waxaan furaynaa meeshan ay ku qoran tahay primary menu marka aan furno meeshan isa ujeedo menu mobilka sidaan buu noogu soo baxay tabletka sidaan noogu soo baxay computerka hadii aan rabno inaan design-ka aan qurxino waxaan ku dhufanaynaa design marka aan ku dhufato waxaan rabaa inaan midabka xoogaa yar bedelo okay tagasta qoraalada saa ujeedo waa markaas waa madow laakiin farta xoogaa yar tahay daciif meeshan markay ku qoran tahay menu font horteeda ay furaysaa menu font marka aad furto marka meeshan saa ujeedo ay ku qoran tahay font weight-kan waxaad ka dhigaysaa inaad furto at least waxaa ka dhigaysaa adiga normal hadda normal ay tahay yes 400 hadan waxaan ka dhiganaa medium oo 500 oo kale hadda saa ujeedo xoogaa waa ay soo noolaatay hadii aad rabto fartan waa bedeli kartaa okay tan waa ka dhigi kartaa hadii aad rabto farti ku qanciso waxaan la WordPress-ka markaas waxa aadan bedeli karin mala tii hore aan iska dhaafeynaa marka okay hoos soo deg marka sidoo kale hadana hoos marka u soo degto hadii hoostan u soo deg hal mar wax yar aan furo iyadii meeshan waxaan ku haystaa font size okay font size kan waa bedeli karaa oo kaas cabirka waa farti waaye hadii marka walba ay saan kaaga khaldanta meeshan saa ujeedo oo sidii ay dhaheeda ku soo laaban kartaa adan waxba markaas ka bedbedelin soo marka tan waxaan ku soo celinaa 500 ka dhiga intaasan sameynaa marka soo markaan sidaas sameeyo waa iska dhaafaa tani waa laptopka oo computerka ku wanaagsan yahay waxana geysaa mobilka shaqo badan oo noogu baahan inaan ka qabano oo hal mar hadii aan furno fiir mobilka soo waxa u maleysaa inay wax isbedelayaan markooba horta gadaalan oo general aan ku dhufanayna meeshaan gadaalan u laabanayna hal mar waxaan tagaynaa meeshaan soo mobilka markuu yahay tablet ama computerka waxa haysta side title iyo primary menu laakiin markii aan mobilka doorto fiiri meeshan waxyaabo badan ay soo galay kood u horeysa side iyo loogada iyo side title-ka waa soo aragnay toggle button-kan muxuu yahay waa button-kan meeshaas taagan oo menu-ga fiir hadii aan bedelo design-kiisa oo isbedelaa saa ujeedo design-kiisa oo isbedelaa hadii aan 3 dhibcood ka dhigo fiir design-kiisa oo isbedelaa 3 dhibcood noqona markaas midka dhaxan iska dhaafeena sidoo kale kan markaas hadii aad u baahan tahay waad weyneyn kartaa midabkiisa iyo button ku soo noqonay mar waxaad ka dhigi kartaa outline waa ka dhigi kartaa man sidaan waa ka dhigi kartaa soo sidaan iska dhaafeena si la mid ah design hadii aan ku dhufto mar walba design-kan waxa ogaataa color-ka ay ka bedeli kartaa soo midabkiisa waa bedeli kartaa hadda midabkiisa kale waa cagaarka ba soo qaad waxaan ka dhigi karaa midab madow aan ka dhigi karaa waxyaabahaas aan ka dhigi karaa okay soo marka waxaan iska dhaafeena cagaarkiisa iska dhaafeena okay ka soco soo marka waxaan geysaa markaas gadaalan u laabanayna okay toggle button-ku waa aragnay button-kan kale aan furno button-kan kale muxuu yahay hadii aan ku dhufto menu button-ka waa kana waxba kuma qorno qoraal si uu leeyahay qoraalkaas in wuxuu noqonaa ka soo qaad get in touch oo nala soo xiriiro kala camal asiga ka soo muuqana wax xirka bacd hadii aan furo fiiri waa kaas button-kaas markuu qofka menu ku dhufto mobilka button-kaas hoos ayuu ka arkaa get in touch oo marka meeshan waxa ku qori kartaa link ayaa siin kartaa oo linkiga markaas ka soo qaad page-ka camal ayaa siin kartaa page contact iyo kale
contact oo kale inoo soo booda ila tahay wax yar oo sugeynaa. So ama haddii kale meeshaan waxaa ka sii wanaagsan oo markaasi dadka markaas aad kusoo jiidan kartaa inaad markaasi maxaa dhahay aad ku qorto tusaale ahaan numberkaada oo kale haddii aad service lacala aad bixiso kale inaad numberkaada aad ku qorto. linkan waa iska diraa marka hadda haddii aan furo fiiro marka hadda haddii aan furo waxaa ujeedaa 252 inuu markaas numberkeeda aan ku qoro mar soo saas oo hagaajin kartaa asigana sila mid haddii aad rabto colorkiisa inaad bedesho design aad tagaysaa meeshaan waxaa ku haystaa background colorkiisa iyo ku haystaa qiyaasa ayaa bedeli kartaa midab alaal midabka rabtaa ka dhigi kartaa maadaama la ka website-kan cagaarka iska dhaafeena. Okay marka inta sameyso waa ka laabanaysaa kan. Okay waa iska xiranaa. So mid ku dambeeya waa primary menu waa kuwana menuyadan waa home surface-ka kuwa marka maxaa ku sameyn kartaa kuwa waxaa ku sameyn kartaa waxyaabo badan. kooda hore sidoo hadda iska dhaafeena maadaama hadda aysan waxba ka qaldaneen laakiin design-ka waa bedeleynaa. Okay haddii aan rabno design-ka si u bedeleynaa marka hoos ayaan markaas soo degeynaa hal mar sila mid ah meeshaan font ay ku qorantaan furayna iyaduna hadda farta ujeedo waa 600. Okay ama haddii kale weedka ama dhehe culeyska hadda waa 500 saa ujeedo 600 waa ka dhigi kartaa sidaas oo kale waa ka dhigi kartaa. Okay markaan 600 ka dhigno hoosaan usoo degeynaa marka meeshaan font size-ka ay ku qoran tahay fiir marka waa yarey karnaa kan waa kii markaas maxaa dhahay mobilka waa iyo isma laha laptopka iyo mobilka mid walba shaqada ka bedesha ayaa ka bedelmay marka intaan iska dhufanayna sidiisa horaan iska dhaafeena fartan sidoo kale inta waa ka bedeli kartaa. So marka intaas sameyso marka intaas aad sameyso waxaan ku soo laabanaa meeshaan kore. So hadda primary menu waa fiirinay button-ka waa fiirinay kuwan oo dhan waa bedelnay wixii design oo ahaa dhamaan hadda waa bedelnay hal xabaan oo harsan markaasi haddii aan dhinaca aan furno laptopka oo hoos aan usoo degno waxaan oo harsan qaybtaan footerka marka gadaalan u laabanaynaa hadkooda hor shaqadeena publish ayaan leenahay si aan u save gareyno. So markii xigta meeshan ay ku qoran tahay footer builder ayaan hadda imaanayna hadda headerkii waa soo aragnay footerka marka meeshan waa iska xireynaa. Okay markaan iska xirnay inta qalinka la dul tagayna wax walba ka bedeli karnaa hadda loogadan oo kale inaan bedelna rabnaa qalinka la ku dhufo bas qalinka marka ku dhufato inta loogadii ku keenaa soo loogadan ku dhufo laba jeer meeshan ay ku qoran tahay edit ku dhufo edit marka ku dhufato waxaan leenahay replace ayaan leenahay loogo kale noogu bedel. Okay media library markaan dhex keenaa loogadana ku bedeleena tan ku dhuftay kadib waxa la replace inuu ku bedela rabaa oo loogadeeda halkaas ka soo muuqatay saa ujeed halkaas ay ka soo muuqatay. So kuwan kale copy hadii gadaal aan u laabto waxaan ku haysanaa meesha HTML waa loogada footer menu-gaane waa midka markaasi oo meeshaan ku qoran soo haddan ka soo qaata laptopkii oo kale hadda waa uu markaasi sidaas buu ku yahay haddii lacal aan hadda fiir ama mobilka oo kale aan ka galo waan arkaynaa. soo loogadii way noo bedeshay haddii aan rabno inaan hagaajino kan waxaan tagaynaa footerkii haddadan kadib waxaan tagaynaa footer menu iska fududahay waxaan rabnaa marka soo qaad inaan bedelno bahalaan design-kooda. Okay design ayaan ku dhufanaynaa design markaan ku dhufano text color-kaan bedeleynaa text color-ka hadda waxaan ka dhigaa kaba soo qaad madow aan ka dhigaa madow laakiin waa uu yahay cagaar waan ka dhigi karnaa oo kaasa soo madow waa uu yahay laakiin si fiican looguma jeedo. Okay waxyara hoos soo degeynaa marka menu font size-kan oo kale inta waa ka yara weyneyn karnaa haddii aan rabno no problem. Okay intaasaan farta iska dhaafeynaa. So farta marka inta iska dhaafto alignment-iga oo kale gees waa geeni karnaa oo kulli hadda dhex waa geeni kartaa meesha rabto waa geeni kartaa laakiin dhexda iska wanaagsan layout-kan inline oo ku sameyn kartaa oo jijiifi kartaa oo ka wada sidaan qiyaasayo stack oo ku sameyn kartaa oo joogsi ahaan. So intaas marka aad sameyso markaasi hadda tablet-ka oo kale aan fiirino marka tablet-ka isaguna sidaas buu noogu soo baxayaa. Okay hal mar haddii aan ku dhufan iyaguna tablet-ka waxaan sameyn karnaa design aan tagaynaa design markaan tagno kaba soo qaad text color-kiisa waa noocaas iska dhaafeena font-iga oo kale isaguna markaasi waa yar hagaajinaynaa. Okay font-giisa oo kale isagu waa hagaajinaynaa isagu waa jiifkaasi marka waxaan ku laabanaynaa mobilekii computer-kan ku laabanaynaa computer-ka marka hadda saa ujeedo haddii aan ku dhufto menu-ga computer sidaan soo saara horta kooda hore waxba looma jeedo waxaan isku dayaa markaas inaan bedelno
kalarkii aan isku daya inaan bedelo sababtoo ah hadda meeshaan waxba iima soo muuqanayaan. Okay, kalarkii aan isku daya soo saa ujeedo meeshaan wax kalarba ma ku siinayo. Okay, so hal mar waxaan tagaynaa design, kadib meeshaan background-ka iskaga nasiibsanayna inuu kasoo muuqanayo in kale. soo saa ujeedo kalarkiiba malahanba mobileka, laakiin asigoo dhan laptopka waa ka dileedi kartaa haddii aad u baahan tahay. qaybta laakiin premiumka in laga helaa laga yaabaa. sidoo kale copyright-ka meeshaan waa bedeli kartaa iyadana qoraalkaasi oo hadda kaba soo qaad bold ayaan ka dhigaynaa kastoo yar waa yar weyneynayna sidiisaan ku dhaafeynaa. marka kaba soo qaad mobilekii oo kale hadda sidaan baa noogu soo muuqanaa, tabletkii oo kale maxaa lahay footerka sidaan noogu soo muuqanaa, laptop computerkana sidaan baa noogu soo muuqanaya. marka intaas sameyso marka shaqadaada waxaa dhahdaa publish ayaa leedahay. soo header and footerkii ugu muhiimsanaa sidaas ayaad ku sameysaa website-kaada oo ahayd markaas shaqadii ugu adkeyd. soo marka aan u gudubno step-ka ku xigay markaas aan aragno sida page-ka contactiga iyo waxyaabahaas ugu muhiimsan loo dhiso. soo step-ka toddobaad waxaan ku arki doonaa markaasi si loo dhiso markaasi page-ka contactiga. soo kaba soo qaad hadda haddii aan website-kan aan kusoo laabano, haddii aan ku dhufto meeshan ay ku qoran tahay contact aan ku dhufto, sida markaas ku muuqata waxaa ujeedaa markaasi page-ka contact aska markaasi inuusan noo dhisnayn. oo hadda haddii kaba soo qaad meeshaan aan email aan ku qoro iyo phone number inuusan emailkaysi sax ugu soo dhicin, oo waxaan u baahanaa inaan dhisno oo kan waa kii template-ka oo watay. marka si aan u dhisno marka contact form si aan u dhisno waxaan u baahanaa plugin. waxaan tagaynaa qaybta backend-ga ee website-kan ayaan ku laabanaynaa. plugin-kan waxaa loo yaqaanaa markaan u baahanaa WP Forms. haddii aad qaybta plugins qorto oo markaas add new aad dhahdo, add new haddii aad dhahdo meeshaan aan ku qorto markaas WP Forms aad ku qorto, plugin-kan laga yaabaa inaad hesho sababtoo anaga haddadan waa noo install garaysan yahay oo markaasi install iyo waxyaabahaasna ma siini doono. saa ujeeda plugin-ka waa kana WP Forms ee power garayso 5 milyan oo qof hataa la soo degtay. waa plugin markaas si aad loo adeegsado. qayb free ayuu leeyahay, qayb premium oo uu leeyahay oo page contactiga ayaa lagu dhistaa. marka haddii aadan u baahnayn markaasi inaad iibsato markaasi Elementor Pro, website-kana waa ka dhexelaysaa haddii aad rabto, ama shirkadda Elementor waa ka dhexelaysaa. haddaadan plugin-kaas rabin kan waa adeegsan kartaa. marka WP Forms intaan ayuu noo yaalaa. marka waa dul tagaynaa, kadibna waxaan leenahay all forms aan marka hore ku dhufanaynaa. all forms markaan dhahno saa ujeeda hal meeshaan contact form hal mid ayaa noo sameysan oo midkan hadda website-ka arkaynay. haddii aan dul tagno preview aan dhahno, right click aan dhahno, kadibna open link in new tab aan dhahno, wuxuu ku tusaa markaasi inuu formkan noqon doono markaasi midda hadda sameysan website-ka dhex yaala oo markaas hore abuuran. marka kan uma baahnin annaga oo midkan ayaan abuuranaynaa. kan marka haddaad rabto delete waa iska dhigi kartaa. marka waxaan sameynaynaa waan tiga saaraynaa, inta ayaan furaynaa, kadib trashkan aan dooranaynaa, kadib waxaan leenahay apply oo markaasi delete ayaan leenahay. markaan delete dhahdo marka adiga waxaa u baahan tahay inaad form abuurato. marka see form abuuranaya meeshaan bidixdaada ah ay ku qoran tahay markaas add new ayaad ku dhufanaysaa. meeshaas kore waa iska dhufan kartaa guduudka isku mid. add new marka aad ku dhufato meeshaan kore saadan ugu wareerin hadhow waxaad siisaa magacaasi formkan. soo kaba soo qaadkani waxaan leenahay waxuu noo noqonaa formkii markaasi form 1 camal aan iska siinaynaa. waa form koobaad noo sameysanaa leenahay. marka xigta meeshaan waxyaabo badan oo ku siinaa. marka waxaad kaliya adeegsataan simple contact formkan, formka oo markaasi contactkan use template ayaad iska leedahay. okay, inta ayuu ku keenaa. marka formkaadi waa kana saddex intaan qaybo kooban yahay, qaybo kale oo kusoo dari kartaa saa qiyaasayo. marka waxaad ku dhufataa qaybta koobaad, form koobaad, namekaas ku dhufa, qaybtaasaan ku dhuftay, inta ayuu u keenaa. marka soo mar koobaad anigu u baahnayn qofka magaciisa koobaad iyo magaciisa dambe halkiis magac oo horeeya bas ayaan u baahanaa. meeshaan aan furaa waxaan ka dooranaa simple aan ka dooranaa. saa ujeeda hal magac uu siiyey. meeshaan sidoo kale inta ayaan imaanaa level ay ku qoran tahay waxaan ku bedelaa markaas kaba soo qaad magaca ayaan ku bedelaa. kadib magaca qofka ayaan ku bedelaa magaca. markaan qoro highlight ayaan saaraa, kadib right click copy aan leeyahay, advanced ayaan imaanaa. advanced markaan imaado marka meeshaan ay ku qoran tahay placeholder, right click aan leeyahay, paste aan leeyahay. magaca inta inuu dhexda ka soo muuqdaa rabaa. kadib waxaan sameynaa meeshaan kore waa iska qarina oo uma baahni kor inuu ku qornaado magaca, waxaan rabaa inuu gudaha ku qornaado. marka xigta emailkaasna sidoo kale aan yeelaa ku dhufo. kadib waxaad tagtaa advanced ayaa tagaysaa. marka hore waxaa sameynaa horta emailkan qoraalka ii koobiyey, advanced ayaa tagaysaa. marka meeshaan placeholder right click the paste emailka kaasa. sidoo kale hard level ayaa leedahay, levelkan iga qari saasoo kaaga qarinaa.
qaybta ku xigtana waa sameyn kartaa qoraal comment or message copy dhe advanced imaw place all right click dhe kadib waxaa dhahdaa paste leh hide level aa leedahay isaguna waa uu kaa qarinaa hadda haddii aanu intaan save gareenin haddii aan dhaho preview taab cusub oo igeenaa wuxuu itusaa marka hadda formkii aan abuuray qaabka uu egyahay waxaa ujeedaa formkii hadda aan abuuro sida inuu egyahay magacii koowaad first last meeshaan marka haddadan la hal magac bas ku qoran maaqaan wax lastigan dambe uu wado refresh aan leeyahay soo inuu kan ka bixi doono ila taa wax yar update isku sameynaa marka intaas sameeyo save ayaan leeyahay okay save aa leedahay soo anigoo inta dhex joogo marka haddaan rab inaan wax ka bedelo qaybtan settingka ayaa tagaysaa markaa settingka tagta marka meeshaan wuxuu ku weydiinaa markaasi maxaa lahay laba waxyaabood oo mar koowaad haddii aan ku dhufto meeshaan notificationka wuxuu leeyahay meeshaan waa muhiim emailka markaasi aad u dirayso fariintaani email addresska ku dhacaysa ayaa laga rabaa oo dad contactiga marka ay qoran email addresskaani kaba soo qaad waxaad gelisaa markaasi kaba soo qaad gmailkaad geli oo aad jeceshaa markaasi in fariinta markaasi lagu soo diro marka xigta meeshaan ay ku qoran tahay subject line-kana waxaa leedahay waa ciwaanka markaasi macnaha message-ka marka ku soo dhaca waxaad kaba soo qaad waxaad dhici kartaa new message from new message aad tusaale ahaan waxaad qori kartaa fariin markaas cusub ay kaaga timaaday website-kaada si aadan hadhow markaasi aadan ugu wareerin emailada markaas ku soo dhacaya mise markaasi aysan kaaga qarsoomin soo marka intaas sameyso meeshaan wuxuu ku leeyahay magaca waa magaca website-ka oo kaasa from emailka marka waa qofka caadiga ah user-ka taas uu u baahan inaa bedesho marka xigta confirmation hadda ma notification ka soo tagnay confirmation marka qofkii markii uu diro emailka fariin confirmation ayuu siinaa fariintaas oo thanks for contacts and we will be in touch shortly soo marka halahaan qoraalkan waa bedeli kartaa waxaad dhigi kartaa kaba soo qaad waan qoraalkaas ayaad markaas ku qoraysaa qoraalkan hadda markuu qoro intana waa okay waay marka intaas aad sameyso waxaa dhahdaa save ayaa leedahay save marka dhahda marka waxaan iskaga soo laabanaynaa meeshaan ay ku qoran tahay fields aan iskaga soo laabanaa formkeeni marka saan uu egyahay waxaan leenahay marka preview ayaan leenahay kii hore waa iska bixinaynaa taabka hore close aan iska leenahay soo preview marka dhahda waa kana saan kuu sheegaya si update isku sameynaa soo magacii meeshaan geli marka magacii kaba soo qaad waxaan dhahay waxaa lahaa cali emailkii meeshaan geli emailkii waxaa lahaa kaba soo qaad kana iskaga qoray commentiga meeshaan geli marka soo commentiga meeshaan gelina waxaan leeyahay kaba soo qaad waa test oo kale ayaan leeyahay ama waa tijaabo kadib waxaan leeyahay submit oo dir ayaan leeyahay soo marka saan u dira fiir marka wuxuu leeyahay waatana fariintii formka thanks for contact as oo ku soo jawaabi doona soo marka fariintaas automatic ayuu ku siinaa marka intaas sameeyay marka ugu dambeyn waxaa dhahdaa save ayaa leedahay save marka aad marka kadibna waxaad ku dhuftaa calaamadan close-ka waad iska xiri kartaa formkeeni marka oo kaas hadii hadda all forms and all form marka waxaan sameynaynaa waxaan dhex taganaa website-kan dhex taganaa markaan dhex tagno kadib waxaan ku dhufanaynaa meeshaan ay ku qoran tahay contact ayaan ku dhufanaynaa contact marka formkii haday waa iska dileedna waa kana marka waxaan leenahay edit with elementor aan ku dhufanaynaa soo edit with elementor marka dhacdo meesha marka waxaan soo qaadanaynaa formka ayaan qoraynaa soo inta waxaad ku qortaa kaliya form iska qoraysaa wb forms oo kaas ay ku soo baxaysaa waa soo jiida marka inta ayaa keenaysaa marka inta keento hadda wax form ma laha inta ayaad furaysaa ama hadii kale inta dhexdeeda waa furi kartaa waa isku mid formkii marka inta furno magaciisa ahaa form 1 waa kaas waa ka dooranaysaa kadib formkaadi ayaa wuxuu kaaga soo muuqanaa halkaan hadda dan close ka dhaho iska xiro bahashani waxa ujeedaa formkeedii magacii emailkii inuu halkaan ka soo muuqanayo soo marka intaas ayaad markaas maxal ahay aad ku dhaafaysaa meelahan marka waa iska hagaajin kartaa waxyaabahan ka soo qaad intoo kale emailkaada waa ku qori kartaa halkaas ay ka bedelaysaa kadib hadaa rabto qoraalka inaad hagaajiso waad ku dhufanaysaa typography colorka oo kale ka soo qaad waxa ka dhigi kartaa madow waa ka dhigi kartaa typography sidoo kale inta aad ka maamulaysaa markaasi okay hal mid kamid ayaa markaas maxal ay kaas waa contactiga typography-ga asaa laba kala ah mid waa description-ka waa midkan hoose asigana hadaa fartiisa rabto waa yarey kartaa kaasa okay kaasa marka waxa dhigi kartaa copy tusaale ahaan inta imaanaysa kan waxa leedahay right click paste style leedahay mujada style ko iska copyisma oo isku naqshad ay qaadanayaan kadib waxa leedahay paste style meeshaan waa ku dhufan kartaa linkiyadaan waxa la social media qalinkaas la ku dhufo linkiga aadan rabin inta ku dhufanay waa iska bixinaysaa Facebook kale hadii aad rabto inta ayaa markaas link Facebook soo gelinaysaa okay halkaas aad waxa soo gelinaysaa linkigaada Facebook sidoo kale Twitter halkaas hoose hadii aad rabto social media cusubna inaad ku soo darto waxa leedahay add item kadib inta ku dhufanaysaa
inta ku qoray social arabta markaas kaba soo qaad Instagram oo kale aan rabaa halkaas aan ku qoraa kadib waxaa la enter waa doorana kadibna waxaa la insert aan la mujeeda Instagram meesha ka soo muuqday linkiga Instagram halkaas soo gelinaysa marka okay hatta waxa kale ku sameyn kartaa hatta qof kaba soo qaad markii uu maxal ahay linkiga ku dhufto meeshan setting hadii aad ku dhufato wuxuu leeyahay markaas open a new window oo qofka hadhow markuu ku dhufto linkigaada window cusub ayuu sii furaa marka inta waa sameyn kartaa qoraalkana wax yar iska yareynaa sayid uu weyn yahay typography tag waa midka description ka hoos imaaw kadib waxaan sameynaynaa soo meeshan waa blur iska u baahnin typography imaanayna hal mar size ka waa yareynayna okay meeshan sidoo hore ku soo celinayna marka inta sameyso waxaad ku dhufataa qaybtan hoose responsive mode kadibna qaybta mobilka ka dooranaysa soo mobilka marka sida uu uga aada ayaa fiirinaysa soo sidaas ugu soo baxa kan oo kale oo ku dhufanaysa style tagaysa kadib typography ayaa leedahay kadib style waa weynaynaysa waa leekaysiinaysa intaan kale okay way sidoo kale kan column-kan hal mar ku dhufo kadib waxaad tagtaa advanced meeshan top-ka hadda fiiri space badan u dhaxeeyo waa iska tiraysa si aad kor ugu baxo sidoo kale inta wad kala furaysa hadii aad u baahan tahay amsidiisa hore iskaga soo celinayna kaasi okay soo marka intaas aad sameyso tablet-kan ku fiirinayna isaguna tablet contact form sidaas buu noogu soo baxaysa ujeedo hadda u baahan tahay column-kan oo ku dhufo kartaa kadib marka ku dhufato layout tagaysa column-kan oo dhan waxa siin kartaa kaba soo qaad 30 waa siin kartaa okay midkan kale oo ku dhufan kartaa halkaas ku dhufanay layout-ka asigan waxa siin kartaa 70 waa siin kartaa mujeeda kan waa weynayn kartaa kana waa yareyn kartaa cabirkiisa marka kan waxaan siinaynaa okay kana hal mar ku dhufanayna 70 waa meeshan waa bedeleynaa waxaan siinaynaa 50 ayaan siinaynaa ama hadii kale waxaan siinaynaa 60 ayaan siinaynaa okay soo xoga u weynaada kan intaas kan qoraalkan waa yareey kartaa qalinka la ku dhufo typography style tagaysa style marka tagto typography hal mar hoos ima description kan tag halkana marka qoraalkaada aad ka yareey kartaa kaasi tablet dadka haysto okay sidoo kale social media hana waad hal mar waa yareey kartaa isaguna ku dhufo qalinka la ku dhufo bes kadib style tag kadib ayagana size code inta aad ka maamuli kartaa markaasi okay space-ka u dhaxeeya hadda rabto waa yareey kartaa size code waxa ku dari kartaa intaasaan ku dhaafeynaa marka mobile sidaas uu muuqdaa tablet-kan sidaas uu muuqdaa kadib desktop-kan waa la mid isaguna sidaas uu muuqdaa marka intaas sameyso maxalada marka update ayaa leedahay sida shaqadaadii waxa dhamaa ay u save garayso kadibna marka qalinkaas waxaad ku dhufanaysaa preview ay ku qoran tahay si aad markaas aad u daawato website-kaada sida uu muuqdo soo contact ask marka uu kaasa sidaas aan qurxinay magacii emailkii fariintii wixii dhamaa waa hagaajinay qof markii tusaale ahaan u qoro fariin kaba soo qaad sidaan haday soo sheegnay test 2 oo kale hadaan iskaga qorno oo aan submit dhahno waa kaasa wuxuu leeyahay markaasi thanks for contacting us waan ku soo jawaabi doonaa oo qoraalkii aan bedelnay marka intaas ayaad hagaaji kartaa page-kaas oo horeeyay sidaas oo hagaaji kartaa oo contact aska page-ka ahaan marka aan u gudubno step-ka xiga soo step-ka sideedaad ahaan step ku dambeeyo waxaan arki doonaa markaas sida xawaaraha website-kaada kor loogu qaado soo siyaantaas u sameeyna marka waxaan u baahanahay plugin cusub oo shaqadaas noo qabanayo marka waxaan tagaynaa qaybtan plugins ahaan kadib waxaan leenahay add new ayaan leenahay plugin-kan ayaa wuxuu ka caawin doonaa markaas xawaaraha website-kaada inaad markaas aad kor u qaado kadib meesha searching-ka waxaad ku qoraysaa markaas plugin loo yaqaan markaas light speed sidaas baad u qoraysaa soo plugin-ka marka aad search garayso aad raadiso sidaan ayuu egyahay waa kana ay soo degsatay markaas 3 milyan update waxa u jeedaa in 2 isbuuc ka hor update lagu sameeyay marka plugin-ka u baahna waa kana waxa leedahay kaliya install now ayaa leedahay kadibna waxaa leedahay markaasi oo ku soo dago activate ayaa leedahay activate gareynaysa plugin-kan marka asiga ayaa markaas si automatic ah website-kaada xawaarihiisa kor u qaadayo soo sida meeshan ka jeedo wuxuu horumarin ku sameeynaa dhammaan waxyaabaha website-kaada ku jira sida sawirada image-ka CSS lacala hadii uu code kugu jiro waxyaabahaas dhan marka u baahnid inaad plugin-kan gudihiisa shaqooyinka bedesho marka asiga ayaa automatic waxyaabaha shaqo ah ku qabanayo soo marka step-yada kale markaas aad ku yareyn karto markaas culeyska website-kaada oo aad xawaarihiisa kor ugu qaadi karto waxa kamid ah mar walba aad sawirada soo upload gareynaysa ama waxyaabo markaas soo dhigayso website-kaada waxaad hubeysaa markaas images-ka soo dhigayso sawiradooda markaas inay 1 MB ka yar yihiin oo tusaale ay yihiin kaba soo qaad KB oo kale ay yihiin
50 KB 60 KB inay yihiin oodan markaasi sawiradood aad u yaryahay. sidoo kale meeshaan haddii aad tagto media waad ka helaysaa library haddii aad ku dhufato waxaad sidoo kale aad hubisaa markaasi inaad marna markaasi soo upload karayn oo aad kusoo dhex dhigin markaasi WordPress-kani wax markaasi video sababtoo xawaaraha website-kaada saaid ayuu website-kaada u daciifa soo marka wax video ah markaas ka ilaali videoyada meel kale ayaa lagu hoostaa Vimeo iyo waxyaabahaas isticmaali kartaa marka WordPress ka ilaali markaas maxaa lahay inaad markaas aad soo upload karayso aad soo dhigto markaas muuqaal soo marka plugin inta automatic uu soo darsamo kaasa markaasi sidoo kale waxyaabaha kale markaas xawaaraha website-ka kor u qaadayso waxa kamid ah plugins-kan oo kale muddo kadib isbuucyo kadib bil kadib ama 2 isbuuc kadib soo laabo website-kaada wixii plugins markaas waxaad ku sameeysaa update ku sameey sidoo kale theme-ka haddii aad tagto meesha themes-ka appearance aad dhahdana theme-ka markaas aadan u baahnayn iska delete garay oo theme-ka isticmaalaysa bas ha ku halka theme isticmaalaysa install ha ku ahaado ayaguna waxay ka cunayaan space sababtaasna waxay keeni kartaa in website-kaada culays noqdo marka step-yadaas sameey si aad xawaaraha website-kaada kor u qaado ugu dambeyn marka koorsadayni ahayd sida markaas loo sameeyo WordPress website ee 2023 intaas ayaan kusoo ekeenaynaa haddii markaad u baahan tahay markaas wax caawinaad ama website u baahan tahay ama markaas aad u baahan tahay inaad barato sida loo sameeyo blogging website waxaa jirta sidoo kale markaas koorsooyin aan ka diyaarino oo website-kan aad ka helayso mise caadi markaas aad u iibsanayso soo waa nala soo xiriiri kartaa koorsooyinkaasi waxyaabahaas haddii aad u baahan tahay inaad iibsato haddii aad website-kana booqato waxyaabahaas koorsooyinkaas oo dhan waad ka helaysaa markaas maxaa lahay iyo marka waxyaabaha aan bixino templates aad ka helaysaa plugins oo premium sidoo kale waa ka helaysaa sidoo kale markaas waxaa jirta markaas website waxyaabo aan power garan sida blogging e-commerce waxyaabaha oo dhan marka website-kan gudihiisa waad ka helaysaa marka haddii aad markaas waxyaabahaas oo u baahan tahay markaas inaad wax ka ogaato ama aad barato waan ugu soo biiri kartaa muuqaalkan intaas ayaan kusoo gabagabeynayna haddii marka intaad website-ka sidaas aad wax culays la kulanta ama markaas caawinaad gaar aad u baahato waana la soo xiriiri kartaa iyaduna soo intaas ayaan kusoo ekeenaynaa markaasi qaar badan